شعورتي aad maanta u kacsanay waxaan aad ugu faraxsanahay deeqdan waxbarasho ee aan ka helay wadanka Itoobiya waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad waxaan mahadcelinayaa Ilaahay inoo suurto geliyay deeqdan waxbarasho marka labaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Puntland dhammaan dawlad goboleedka Puntland khaasatan wasaaradda waxbarashada waxaan helay kulliyadda medical laboratory waxaan ka helay jaamacadda Tima University of Utah South West dalka Itoobiya sanadka wadani iyo intii ka horeysay mid wadaniga waxay ku salaysan tahay dhibcaha ardaygu keenay mid noo yimi oo xidhxotay ama qaraabadiisa ama naqaano ama waalidka noo keenay idin kuma jiro iyo mid aan naqaano mid walbaana waan aqoon meeshu joogo iyo iskuulku ka baxay baa la soo wacay sababtaan taas uga dambeeyay waxa weeye horta marka hore dadka inay kalsoonida u soo noqoto dadka kalsoonida waa ka dhuntay waxaa yar dadka aaminsan in cadaalad dhici karto ama qofku waxa uu xaq u leeyahay gareeso jidada kulan kale inahay waxa weeye qayb ugu yaraan idinkayda ka mid ah inay karboonada sii wadooyaduna oo ay dareenkaas loo fidiyay oo sidaas Soomaalinimada ahay wax ku heleen oo qaraabada iyo eexda ka madax banaan ina idinkuna hadhow bulshada ugu shaqeysaan waa hawl idin taalo mid ku helay leex iyo qaraabo iyo leex idinku jiro mid waliba Soomaalinimo iyo dadaalkiisa ayuu ku helay taas baa idinka faliyaa idinkana hadhow markaa nolosha ku soo biirtaan iyo mas'uuliyad aad qabataan laydinka faliyaa magacaygu waa Cabdixakiin Daahir Axmed waxaan aad ugu faraxsanahay oo shucuurtayda aad maanta u kacsantahay waxaan aad ugu faraxsanahay deeqdan waxbarasho ee aan ka helay wadanka Itoobiya waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad waxaan mahadcelinayaa Ilaahay inoo suurto geliyay deeqdan waxbarasho marka labaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Puntland dhammaan dawlad goboleedka Puntland khaasatan wasaaradda waxbarashada waxaan helay kulliyadda medical laboratory waxaan ka helay jaamacadda Tima University of Utah South West dalka Itoobiya 350 kilomitir ka tacni sababa وما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبدixakiin Daahir Axmed waxaan ka baxay iskuulka Cumar Samatar Secondary School ee ku yaala magaalada Gaalkacyo 2011 sanad dugsiyeedka 2010 waxaan ka mid ahaa ardaydii deeqaha waxbarasho ka helay wadanka Itoobiya gaar ahaan jaamacadda Tima University baan ardayda heshay waxaan helay maadada la yiraahdo Medical Laboratory Science and Pathology waxaan soo qalin jabiyay sanadii 2015 waxaan ku soo laabtay caasimadda Puntland ee Garowe waxaan ka shaqo bilaabay iskuulka xarunta caafimaadka Albaraka eedii baan ka shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa cilmiga aan soo bartay waxaan ka mid ah ardaydii ka faa'iideystay deeqaha waxbarasho iyo cadaaladii mudanaha waxa weeye mudane Cabdi Saciid Faarax Juxa oo shucuurtayda aad maanta u kacsantahay waxaan aad ugu faraxsanahay deeqdan waxbarasho ee aan ka helay wadanka Itoobiya waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad waxaan mahadcelinayaa Ilaahay inoo suurto geliyay deeqdan waxbarasho marka labaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Puntland dhammaan dawlad goboleedka Puntland khaasatan wasaaradda waxbarashada waxaan helay kulliyadda medical laboratory waxaan ka helay jaamacadda Tima University of Utah South West dalka Itoobiya